sanadkii 2011 ayay ahayd markii dawladda Kenya ay ciidankeeda u dirtay wadanka Soomaaliya. Haddaba 7 sano kadib hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay in aanay wali ka gaarin ujeedadii ay u galeen Soomaaliya. waraysi gaar ah oo uu siiyay telefishinka BBC isagoo oo jooga London ayaan marka hore waxa aan weydiiyay bal inuu sharaxo sababaha ku qasbay in ciidanka ay Soomaaliya u diraan. laba sabab ayaa noo qasbtay inaan Soomaaliya ciidamo u dirno. mid waxay ahayd inaan nabadgelyada wadanka Kenya ama national security interest ka wadanka anaga inaan sugno maadaama xarakada al-shabaab iyo ururaha kale oo la dagaalamayaan wadanka Soomaaliya dhibaatooyin fara badan ayay wadanka Kenya u keensadeen xagga amniga. markaad soo qaadato Garissa University attack, markaad soo qaadato Westgate iyo meelo kale. laakiin sidaad ii sheegtayba hadda waxaad tiri weerar badan bay ka qaadeen wadanka gudihiisa oo tusaale aad u soo qaadatay jaamacadda Garissa markaad ciidanka Soomaaliya u dirteen kadib ayay u dhaceen. marka ujeedkii aad kala haydeen ma ka gaarteen? waa laga gaaray. hadda daad fiiriso 4 sano hadda aan soo dhaafnay ilaa 2014 markay Garissa University attack dhacday ka bacdi wadanka Kenya wuxuu soo maray waqti nabadgelyo iyo xasilooni khaasatan gobolada Soomaaliya xuduudka la leh ee ka mid tahay gobolka waqooyi bari ee Soomaalida ee u badan tahay gobolka xeebta. marka haddaad weydiiso national security interest ka Kenya ma la gaaray boqolkiiba 85 waa la gaaray. أول dhibaatooyin ka waxay ka dhici jireen magaalada Nairobi, magaalada Garissa, magaalada Mombasa. marka hadda khatarkii waxa lagu reebay tuulooyinka yaryar oo ku dhasan. laakiin meeshii 7 sano ka hor laakiin ciidanka Kenya hadda Soomaaliya jooga meeshii ay tageen oo Kismaayo iyo inta agagaaraheeda ayay ku jiraan oo 7 sano aysan dhaafin. Kismaayo 30 kilomitir banaankeeda aysan u bixin. walina weerarada Kenya gudahooda ka dhacaan. marka al-shabaab way soo daba martay baa la dhihi karaa. marka maxaad soo kordhisay? ma wallahi boqolkiiba 85 san ku sheegay weerarada waxa ka dhacaan xuduudka tuulooyinka xuduudka aan la leenahay wadanka Soomaaliya. mid labaad ciidamada Kenya badi waxay sektorka ay xukumaan waxa way sektorka u dhaxayso dhulka Kenya iyo Soomaaliya ilaa iyo Gedo. taasna waxay ku tusaysaa inaan nabadgelyada wadanka Kenya priority u tahay dawladda Kenya. marka sanado badan ba hadda joogtaan wax istiraatiijiyada idin dagsan ma jirtaa oo xilli aad isleedihiin qorshayaanu ka rabnay waanu ka dhamaysano Soomaaliya waan ka baxaynaa waanan ogahay in cadaadis dhinaca mucaaradka mar walba idinku saaraan inaad ka soo baxdaan wadanka? anaka dawladda Kenya madaxweyne Uhuru Kenyatta Arwit Tomber hadda kor ku dhawaaqay anaka Soomaaliya waxaan ka soo baxaynaa markii aan gaarno sababihi noo qasbay inaan Soomaaliya aadno mid inaan nabadgelyada iyo national security. marka wali maadan gaarin? wali ma la gaarin. goormaad gaaraysaa? wallahi waxay ku xiran tahay shaqooyinka faraha badan aan la sameynayno dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda goboleedka Soomaaliya iyo AMISOM iyo waa sheeko u taalo adduunweynaha iyo wadamada caalamka. laakiin go'aanka adinka iska leh 7 sano kale inaad sii joogtaan suurtagal ma tahay? 7 sano inaan joogno waa suurtagal, inaan 2 sano joogno waa suurtagal, laakiin habeen iyo maalin waxaan ka shaqeynaynaa in sidii infrastructure-ga xarakada al-shabaab iyo loo yareyn lahaa. haddana saan ku sheegay 4 sano hadda aan soo dhaafnay nabadgelyo waarta laga. Aadan Barre Ducaale waxaan ka hadalnay ammaanka laakiin wuxuu ku xiran yahay siyaasadda. waxaadna ogtahay in dawladda dhexe federaalka hadda sheegaysay iyo maamuladii gobolada ka jiray khilaaf weyn u dhaxeeyo. mowqifkiina ku wajahan dawladda Kenya ahaan maxaad ka aaminsantihiin? annaka horta inaan cadeeyo waayo annaka principal partner-ga dawladda Kenya waxa weeye dawladda federaalka ka dhisan Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. taas ayaan nahay principal partner. waqti kasaana xagga siyaasi xagga diplomacy xiriir naga dhaxaya dawladda ka dhisan Mogadishu. laakiin maadaama aan yahay siyaasi Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa waqti kasaana aan fariin walaalnimo aan u diraa inay madaxda dawlad goboleedka ay la heshiiyaan oo ay la shaqeeyaan oo ay partners la noqdaan dawladda madaxweyne Farmaajo.
haddii dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ay isla shaqayn waayaan marka lama gaarayo horumarka xagga amniga iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga xasiloonida waddanka Soomaaliya. waxaa jirta arrin kale oo muhiima oo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya muran u dhaxeeyay oo ku saabsanaa dhinaca soohdinta badda. Naam. taa xagee maraysa halkee? horta Soomaaliya iyo Kenya maanta may noqonin dad jiraan ama dad isku degmo ka imaado. intan hadda aan garanaya adduunka u bilowday badda Soomaaliya badda Kenya meel ayay iskaga imaanayeen. intay isaga imaanayeen? marka meeshaasna meel maanta lagu doodi karo maaha. xuduudka Kenya ama dhulka ahaado ama badda ahaado aan la leenahay waddanka Soomaaliya waa mid siday maalinta iyo habeenka u kala duwan yihiin loo garto. marka waddanka Soomaaliya ayaa wuxuu aaday maxkamadda caalamiga inuu dhaho badda ayaan isku haysanaa waddanka Soomaaliya. taas waan aqoonsanahay waana soo dhaweynaynaa. walaakiin annaga Kenya waxaan diyaar u nahay inaan arrimahaas aan ku xalino si diblomaasiya si laba wadan oo jiraan. yani waxa leedahay in maxkamad aan la isla tagin oo si hoos aad u xalisataan. waa laga fiican yahay laba wadan oo walaalo haddaysan wax meesha ku jirin maxaa keenay inaad sharcigii caalamka iyo maxkamaddii caalamka adduunka u wada dhaxaysay inaad diidaan? maya adduun weynaha wadamadaha adduunka markay doodaan the first option waxaa weeye inay si walaalnimo iyo diblomaasi ay ku xaliyaan. haddii taas lagu xalin waayo ayaa ka bacdi la aadaa maxkamadaha caalamiga. taa ma socotaa? marka annaka taas waan isku daynay waqtigii madaxweyne xasan sheekh waqtigii madaxweyne farmaajo laakiin dowladda Soomaaliya waxay garatay dowlad ahaan inay maxkamadda caalamiga aado. taasna wax dambi oo aan ku eedeynayna ma aho. maxkamadda caalamiga annagana diyaar u nahay inay xaliso. waana mid waxaa weeye u dhaxaysa labada wadan. marka waxaan leenahay hadday naga ogolaadaan inay dib ugu soo noqdaan miiskii heshiiska taas diyaar u nahay. laakiin hadda maxkamadda waxa aada waa waddanka Soomaaliya. annagana diyaar u nahay inaan qareenka annaga oo attorney generalka annaga inuu maxkamadda tago asagana uu caddeeyo. marka sanadkii 2011 ayay ahayd markii dowladda Kenya ay ciidankeeda u dirtay waddanka Soomaaliya. haddaba 7 sano kadib hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay in aanay wali ka gaarin ujeedadii ay u galeen Soomaaliya. waraysi gaar ah oo uu siiyay telefishinka BBC isagoo oo jooga London ayaan marka hore waxa aan weydiiyay bal inuu sharaxo sababaha ku qasbay in ciidanka ay Soomaaliya u diraan. laba sabab ayaa noo qasbtay inaan Soomaaliya ciidamo u dirno. mid waxay ahayd inaan nabadgelyada waddanka Kenya ama national security interest ka waddanka annaga inaan sugno maadaama xarakada al-shabaab iyo ururaha kale oo la dagaalamayaan waddanka Soomaaliya dhibaatooyin fara badan ayay waddanka Kenya u keensadeen xagga amniga. markaad soo qaadato Garissa University attack markaad soo qaadato Westgate iyo meel kale. laakiin sidaad ii sheegtayba hadda waxaad tiri weerar badan bay ka qaadeen waddanka gudihiisa oo tusaale aad u soo qaadatay jaamacadda Garissa markaad ciidanka Soomaaliya u dirteen kadib ayay u dhaceen. marka ujeedkii aad ka lahaydeen ma ka gaarteen? waa laga gaaray. hadda daad fiiriso 4 sano hadda aan soo dhaafnay ilaa 2014 markay Garissa University attack dhacday ka bacdi waddanka Kenya wuxuu soo maray waqti nabadgelyo iyo xasilooni khaasatan gobolada Soomaaliya xuduudka la leh ee kamid tahay gobolka waqooyi bari ee Soomaalida ay u badan tahay gobolka xeebta. marka haddaad i weydiiso national security interest Kenya ma la gaaray 85% waa la gaaray. awal dhibaatooyinka waxay ka dhici jireen magaalada Nairobi magaalada Garissa magaalada Mombasa. marka hadda khatarkii waxaa lagu reebay tuulooyinka yaryar oo ku dhasan. laakiin meeshii 7 sano ka hor laakiin ciidanka Kenya hadda Soomaaliya jooga meeshii ay tageen oo Kismaayo iyo inta agagaaraheeda ayay ku jiraan oo 7 sano aysan dhaafin. Kismaayo 30 kilomitir banaankeeda aysan u bixin. welina weerarada Kenya gudahooda ka dhacaan.
marka al-shabaab way soo daba martay baa la dhihi karaa marka maxaad soo kordhisay ما والله boqolkiiba 85 saan ku sheegay weerarada waxa ka dhacaan xuduudka tuulooyinka xuduudka aan la leenahay wadanka Soomaaliya mid labaad ciidamada Kenya badi waxay sektorka ay xukumaan waxa weeye sektorka u dhaxayso dhulka Kenya iyo Soomaaliya ilaa iyo Gedo taasna waxay ku tusaysaa inaan nabadgelyada wadanka Kenya ay priority u tahay dawladda Kenya marka sanado badan ba hadda joogtaan wax istiraatiijiyada idin dagsan ma jirtaa oo xilli aad isleedihiin qorshayaanu ka rabnay waanu ka dhamaysanno Soomaaliya waan ka baxaynaa waanan ogahay in cadaadis dhinaca mucaaradka mar walba idinku saaraan inaad ka soo baxdaan wadanka anaka dawladda Kenya madaxweyne Uhuru Kenyatta Arwit Tomber hadda kor ku dhawaaqay anaka Soomaaliya waxaan ka soo baxaynaa markii aan gaarno sababihi noo qasbay inaan Soomaaliya aadno mid inaan nabadgelyada iyo national security marka wali maadan gaarin goormaad gaaraysaa والله waxay ku xiran tahay shaqooyinka faraha badan aan la sameynayno dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha goboleedka Soomaaliya iyo AMISOM iyo waa sheeko u taalo adduun weynaha iyo wadamada caalamka laakiin go'aanka adinka iska leh